muuqaaladan aad arkaysaan maaha filim laga matalay naarta iyo weliba maalinta qiyaamo ee waa dhacdo caadi ah oo ka dhacday magaalada Los Angeles gobolka California ee dalka Mareykanka. Dabkani ayaa ah dabkii ugu xoogganaa abid ee ka dhaca dalkani, wuxuuna burburiyay guryo, hoteelo, maqaayado, macbadyo iyo weliba goobo kale oo muhiim ah. Ninkan aad arkaysaan waxaa lagu magacaabaa James Woods, wuxuuna ka mid yahay dadkii aadka ugu faraxsanaa in la ciribtiro walaalaha reer Filistiin. Si laba maalin ka hor waxa uu ka soo muuqday shaydaankani weliba isagoo ilmeynayo TV-ga CNN kadib markii uu gurigiisu dab qabsaday. I posted this on X, but Sarah was on with her 8-year-old niece last night. She came out. I'm sorry. Just, one day you're swimming in the pool and the next day it's all gone. But she came out with her little Yeti piggy bank for us to rebuild our house. Sawirkan aad arkaysaan waa magaalada Qasa oo ay dhulka dhigeen Israa'iil iyo weliba Mareykan oo iswato, halka sawirkan kalena uu yahay magaalada Los Angeles oo muddo isbuuc ku dhow uu dabka ololayo. Haddaba mudanayaal, barnaamijkeena maanta waxaan uga hadli doonaa maxaa sababay inuu dab ka dhaco magaalada Los Angeles, maxaa ilaa iyo haatan loo dami la'yahay dabkani, intee ayuu la egyahay khasaaraha ka dhashay dabkani. Ugu dambeynna waxaan isla barbar dhigi doonaa sida indhabeelka ah ee uu Mareykan u taageeray shaydaankii Netanyahu iyo natiijadii uu ka dhaxlay. Se mudanayaal iyo marweyn, inta aan gudagelin barnaamijkeena maanta waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan oo aad subscribe saartaan channelkeena. Fadlan ha ilaawina inaad la garaysaan muuqaalkan oo aad gaarsiisaan saaxiibadiina. Mahadsanidin. Gobolka California ayaa ka mid ah gobollada ugu caansan dalka Mareykanka, waxaana lagu naanaysaa gobolkii dahabka iyo dhaqanka. Waxa uu gobolkani ka kooban yahay 482 magaalo. Magaalada ugu weyn ee gobolkanina waxaa lagu magacaabaa Los Angeles. Los Angeles ayaa ah magaalo ku caan ah filimaanta, maadaama ay tahay magaalo ay ku taalo shabakada Hollywood, waxaana lagu naanaysaa magaaladani magaaladii malaa'igta. Si muddo toddobaad ah waxay magaaladii isku beddeshay magaaladii naarta, oo waxaad moodaa in dadkii halkan deganaa loo ciqaabay sidii loo ciqaabay reer Caad, reer Samuud iyo weliba dadyowgii hore ee ku kufriyay Alle subxaanahu wa tacaala. Aqoon-yahanadu waxay sheegeen in gobolka California uu celcelisaan sanadkii 6,000 oo jeer oo uu dab ka kaco. Si arrinka la yaabka leh ee caalamka oo dhan ka argagixisa ayaa ah in bisha koowaad oo ah bil qabow misana baraf ah uu gobolkani ka dhacay dabkani aadka u xooggan, waxaana lagu tilmaamay arrin aan fariir iyo weliba ama kaag badan. Waxaa la xaqiijiyey in sababta uu dabkani u kacay ay tahay in geedihii ku yaala keymaha ku hareeraysan magaalada Los Angeles ay isxoqeen, isxoqidoodana waxaa ka dhashay dab. Si awoodda dabkani waxaa sii ballaariyey dabeelaha xooggan ee ka dhacayay goobtani, waxaana lagu qiyaasay in dabeeluhu ay saacadiiba jarayeen wax ka badan 130 kiiloomitir. Sidoo kale, in dab uu ka kaco magaaladani weliba iyadoo lagu jiro xilli qabowba ah, waxaa lagu aaneynayaa isbeddelka cimilada ee ka jira dunida dacaladeeda. 7 bishani ayay ahayd kolkii uu dab ka kacay keymaha, wuxuuna kolkii hore burburiyey in ka badan 10,000 oo guri. Si ugu dambeyn, dabkii wax uuba dhulka wada dhigay magaaladii oo dhan, isagoona gaaray heer aanan la dami karayn. Ilaa iyo hadda, khasaaraha dhabta ee ka dhashay dabkani lama yaqaano. Si wararka hordhaca waxay sheegayaan in 11 qof ay ku dhimatay, 180,000 oo qofna in laga saaray goobaha uu dabka ka kacay, halka 200,000 oo qofna laga sii bixinayo guryahooda. Khasaaruhu dhaqaale ahaan waa midkii ugu badnaa abid ee uu wajahayo dalka Mareykanka, oo wuxuu kor u sii dhaafayaa lacag ahaan $150 bilyan. Dabkani wuxuu ka kacay 5 goob oo kala duwan. Si saameynta ugu badan waxaa dhaliyey dabkii ka kacay xeebta Palisades, oo ah xeeb ay deganaayeen aktarada ugu caansan dalka Mareykanka, ayna ku yaaleen guryaha ugu qaalisan dalkaasi. Sidoo kale waxaa saameyntiisu isagana liidanin dabkii ka kacay Eaton, kaas oo barakiciyey bulshooyin fara badan. Kaliya isugeynta baaxadeed ee labadan dabna waxay gubeen in ka badan 13,700
750 hektar. Gurihii uu saameeyey dabkani waxaa ka mid ah guri qasri ah oo lahaa jalaaga Ameerikaanka ah ee James Woods oo lagu qiyaasay qiimihiisa 3.5 milyan oo dollar. Se gubashada guriga aktarkani waxaa ku farxay caalamka Islaamka oo dhan maadaama uu ahaa mujrim Ameerikaan ah diidayna xabajoojinta Gaza kuna baaqay in la laayo dhammaan Falastiiniyiinta isagoo bartiisa X ku soo qoray oraah ahayd xabajoojin maya, wada hadal maya, cafis ma jiro, dhammaan dila. Isagii muddo sanad ah kadib waxa uu ka soo muuqday TV-ga CNN isagoo weliba ilmeynayo kadib markii uu qasrigiisii uu dab qabsaday uuna hal mar khasaaray in ka badan 3.5 milyan oo dollar. Tanina waxay muujinaysaa daciifnimada aadanaha iyo weliba in nolosha lagu imtixaanayo qof waliba oo ku farxa dhibaatada loo geysanayo ummadaha masaakiinta ee caalamka ku nool. Bal fiiri labadan sawir. Maalmo ka hor magaaladu waxay ahayd sida ka muuqata sawirkan. Kadibna waxay noqotay sida inuu ka arki karno sawirkan oo guryo fara badan ayaa dambas noqday. Sidoo kale sawirada laga soo qaaday goobtanina waxaa ka mid ah kuwani. Haddaba intaas kadib innaga oo aanan ku farxin dhibtii meesha ka dhacday maadaama uunan dab ku saameyn kaliya Mareykankii wada taageeray Israa'iil oo sidoo kale dhibaatadu ay gaartay kuwa ka soo horjeedo xitaa xadgudubka Mareykanka oo ka wada magaalada Gaza. Waxaan rabaa inaan isbarbardhig guud ka samayno sida uu Mareykanka u taageeray dulmiga uu Netanyahu ku laayay walaalaha reer Filistiin. Bal xanuunka ay maanta dareemayaan reer Mareykan ma og miyaa in hore loo dareemay. Muddo ka badan 1 sano ayaa hoobiye iyo weliba hub culus lagu garaacay reer Filistiin. Deedna caalamka oo dhan ayaa ku faraxsanaa arrinkaasi. Waxaana ka mid ah dadkii horboodayay farxaddaasi aktarkii aan soo sheegnay oo uu gurigiisu gubtay. Qiimaha khasaare ee ka dhashay dabkanina waxaa lagu qiyaasayaa 150 bilyan oo dollar. Bal suurayso oo ka waran mudan adiga haddii lagugu yiraahdo intaas oo lacaga ayaa lagu siinayaa ee labadaada indhood ama mid ka mid ah indhahaaga inoo bixi. Waa hubaal ma bixinaysid waayo halkaasi lacagtaasi laguma qiimeyn karo oo waa ay kaaga qaalisan tahay. Sareer galbeedka iyo weli warbaahintooda waxay rabaan inay naga dhaadhiciyaan khasaaraha uu dhaliyay dabkii ka dhacay magaalada Los Angeles ayaa ka xanuun badan dadkii lagu dilay Gaza oo wada ahaa dad masaakiin ah. Tiradooduna ay kor u dhaafaysay 46,000 oo qof iyadoona lagu dhaawacay halkaasi 109,378 ruux. Bal lacagtooda haddii aynan hal il oo qof uu leeyahay aynan goynayn sidee nafafka reer Filistiin oo wada qaali ah ay uga murgi waayeen kolkii ay hiil iyo hooba la garab taagnaayeen shaydaan Netanyahu. Waxaa intaasi ka daran in Trump oo lahay reer Filistiin dhulka la dhigayaa uu haatan qalbigiisa ololayo. Baarlamaankii Mareykanka ee 79 jeer u sacbiyay fircoonkii qarnigan ee Netanyahu ahaana ay wada calaacalayaan. Hadda ogow arrinka ku dhacay reer Mareykan waa musiibo natural ah oo dabiici ah oo ay hal joojiyay dhihi karin, halka midka ay ka geysanayaan Filistiin uu yahay mid ay gacantooda ku sababayn deedna ay ku farxayeen. Allah duleeyo qof waliba ay ku farxay dhibaatadii gaartay reer Filistiin hana ku cadaabo labada daaroodba. Kuma daysanayno oo inagu kuma farxayno dhibtii halkaa ka dhacday waayo dadku imtixaan ku taabtay. Xitaa waxaa ka mid ah sidii aan hore u soo sheegnaba walaalo muslimiin ah iyo weliba shacab Ameerikaan ah oo aanan ku faraxsanayn dhibaatada iyo xasuuqa loo geysanayo walaalaha reer Filistiin. Si ujeedkeenu wuxuu ahaa inaan banaanka keeno munaafaqada reer galbeedka iyo weliba wejigooda dhabta ah. Ugu dambayna haddii aad halkaan nala soo gaarteen la jirkiina farxad ay inoo tahay saaxiibayaal. Inta aan barnaamijka xiga kaga kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa dunidu waa dulqaad dadaalkuna waa muhiim.